warbixinta ka soo baxday IMF ta maanta oo khamiisa bishana tahay 24 September aad baan ugu faraxsanahay inay soo baxdo warkaas soo baxo warkaas wuxuu si fiican u soo koobayaa waxyaalihii ka soo baxay shirkii dheeraha ee aan la lahayn hay'adda lacagta adduunka IMF ta World Bank kuna qayb ka ahaa banka adduunku European Union ka ayaa dad kale fara badan oo Soomaaliya tanayana ay qayb ka ahaayeen laakiin hormoodka oo ka ahaa IMF arintaas waxa weeye bishii ugu horeysay sanadkan shaqo aan la bilownay baa jirtay IMF ta oo ahayd sanad le ah oo sanadkan ku dhamaanaysa sanad soo socda bisha saddexaad ku dhamaanaysa oo ahayd waxyaalihii la inooga baahnaa si aynu meel sare u soo gaadhno si deymaha oo dhan loo cafiyo waxyaalihii la inooga baahnaa inaan qabanno oo ah waxyaalo dalkan wax u taraya oo dhaqaalaha kordhintiisa oo nidaamka maamul wanaagga lacagta oo habka aan wax u maamulano ah oo adduunka si aan soo gaadhno arrinta iyada markaa imtixaankii ugu horeeyay ayaan galay aan ku jirnay imika 24 maalmood baan ku jirnay runtii shalay buu dhamaaday waxaan ka soo bilownay 31 bishii 8aad ilaa iyo bishii 23keedii habeennimadii ayaan ku jirnay sidaan ugu jirnayna waxa weeyaan nidaamka Zoom-ka ayaa la soo galiyay labada galabnimo marka laga bilaabo ilaa iyo 8 galabnimo waqtigeena oo iyagana laga soo bilaabayo 7 aroornimo ilaa waqti dambe afternoon-ka marka warqadda maanta soo baxday press release la yiraahdo waxay soo koobaysaa marka wixii uga soo baxay IMF ta ayay soo koobaysaa taasaa adduunkuna dhageysanaya adduunkuna akhrisanaya adduunkuna Soomaaliya wax ugu qaadaya way Soomaaliya sidee tahay qolada ka hadli karta waa IMF ta way cid walba iyada ay dhageysanaysaa marka hadaad akhrido si fiican waxa fahmaysaa in waxyaalihii la inooga baahnaayo oo dhan si fiican aan uga soo baxnay ayaa tilmaamaysaa shaqada waa laga wada qayb galay iyadoo hormood ka yahay madaxweynuhu Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo hormood ka yahay ayaa laga wada qayb galay shirarka iyo arrimaha arinii soo sheegay wasaaradaha ay khusayso dhan ayaa wasiiradooda ka soo qayb galeen Zoom ka soo galeen su'aalo wixii la weydiiyay ka jawaabeen kamidii wasiirka cadaaladda iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka qorsheynta wasiirada fara badan wasiirka constitutionka hala dastuurka wasiirada fara badan iyo dad kale badan oo shaqaalaha ka soo qayb galay wasaaradda iyadu maalin walba joogtay Central Bank Governor-ka oo isaguna maalin walba joogay yaa gudoomiyaha Central Bank banka dhexe ee Soomaaliya marka waxa aan isla soo qaaday marka waxa weeye arrin waliba si u socdo dhaqaalihiinu si u socdo deymihii arrimihii la kula si u socdaan waxyaalihii la ka dhaafay habkii ma wadaan coronavirus baasha la yiraahdo sida idin gashay iyo waxa idin yeeshay saa uga soo kabanaysaan coronavirus wax badan bay nagu samaysay dekadii baa joogsatay ayaa yaraatay wixii ka soo galay airport-ki waa la xiray dad fara badan oo shaqo ahay oo cashuurta la sii jiray shaqadoodii baa yaraatay marka dakhliga aad iyo aad buu u yaraaday laakiin haddana markii la eegay sidii la moodayay ma noqonin marka la eego cashuur dhaafkii loo sameeyay alaabta bariiska iyo timirta iyo arrimahaas oo kale loo sameeyay waxa bay noqotay inay sidii ka yar wanaagsan laakiin haddana adduunka wax ku dhacay weeyaan dhibaato saan uga soo kabanayna imika waxa weeye ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dib inoogu soo noqdo haddaan inoogu soo noqono maanta inaan soo kabanayno oo soo kacayno ayaa muuqata waxa muuqata cashuurihii inay soo kabayaan waxa muuqata in la sii ballaarin doono hadii ilaahay yiraahdo waxa muuqata in adduunyadu soo jeedo oo ay rabaan ilaa iyo xad meeshii loo baahay inay gaarsiiyaan laakiin inagu aan talaabada ugu weyn qaadno xageena ka qaadno aad baan loo kalsooniyay waxaan idinku dhiirinayaa inaan report ka akhridaan wixii su'aalaha haysan noo soo gudbisaan diyaar waxaan u nahay markaa inaan ka jawaabno wixii magaranaysaa baahi dadweynaha Soomaaliyeed qaban. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi